بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنيالي ومروين كسو دوادا كورسداني وادبرس كومبليت كورس إن شاء الله تعالى عطبكينا مانتي وحان uga hadli doonaa وادبرس Gutenberg بلوك ayaan uga hadli doonaa إن شاء الله تعالى. intaa ka hor waxaan rabnaa Gutenberg iyo waxa uu yahay inaan wax yar overview aan idinka siiyo marka haddaba si aan u ogaano midaasi waxaan tagi doonaa boggaani ayaan tagi doonaa oo ah wordpress.org ayaan tagi doonaa. wordpress.org markaan tagno kadib qaybtaani about ay ku qoran tahay ayaan tagi doonaa oo aan furan doonaa. kadibna waxaad u jeedaa about wordpress miyaad rabtaa, enterprise miyaad rabtaa, Gutenberg miyaad rabtaa ayaa lagu leeyahay. marka waxaan ku dhufan doonaa Gutenberg ayaan ku dhufan doonaa midka ah si aan wax yar aan macluumaada aan idinkula wadaago halkaani. kadib waxaa lagu leeyahay say hello to Gutenberg the WordPress editor. WordPress editor-ka lagu magacaabo Gutenberg marka ayaa halkaani kaaga muuqda. marka waxyaabo fara badan qaybtaani waxa uu u egyahay haddii aad fiiriso aan tagno website-keeni ahaa WordPress-ka waxaad u jeedaa qaybtaani ayuu leeyahay WordPress iyo sidoo kale qaybtan new-ga ahayd waxyaabahaasi ayuu leeyahay. marka kadib midkaan asiguna sidaas ayuu u egyahay waad u jeedaa marka WordPress-ka ayuu leeyahay qaybtaani balasti ayuu leeyahay. intaa kadib haddii aan hoos u soo socno marka Gutenberg halkan waxaa lagu leeyahay marka waxyaaba aad ku samayn karto create modern layouts with rich content ayaa lagu leeyahay marka walk across screen resizes and devices demo do more with viewer plugins ayaad ku samayn kartaa ayaa lagu leeyahay. sidoo kale haddii aan sii socono halkan waxaad u jeedaa be your own builder keliga noqo marka qof warka website-kiisa samaysta oo dhisada noqo ayaa lagu leeyahay. marka sababtoo ah Gutenberg ayaa marka kuu soo sahashay waxyaabahaas inaad adigu keliga aad samaysan karto ay kuu soo fududeysay. marka halkan waxaad u jeedaa marka paragraphkii ayuu leeyahay, heading ayuu leeyahay, media and text ayuu leeyahay, image ayuu leeyahay, cover ayuu leeyahay, gallery ayuu leeyahay, video ayuu leeyahay, audio ayuu leeyahay, columns ayuu leeyahay, file ayuu leeyahay, code list dhammaan waxyaabahan ayuu leeyahay. intooda badan waanu soo qaadanay haddii aad xasuusataan video waanu soo qaadanay oo sida loo soo geliyo siyaabaha kala duwan haddii uu yahay link, haddii uu yahay marka upload, haddii uu yahay marka media library waxyaabahaas ayaan soo baranay. audio sidoo kale file ayaan soo qaadanay oo PDF ahaa, sidoo kale gallery ayaan soo samaysanay, media ayaan soo samaysanay dhammaan qaybahani waanu soo aragnay badankoodaba. columns iyo waxyaabahaas list ayaan soo arkin. marka kadib waxaa lagu leeyahay give your creativity a head start. halkaani marka waxyaabahaasi aad arki kartaa oo marka aad kala socon kartaa. sidoo kale marka halkan haddii aad rabto Gutenberg frequently asked questions haddii aad rabto halkaas ayaad kala socon kartaa, linkigaas ayaad ku dhufan kartaa. wordpress.tv talks haddii aad rabto ayaa lagu leeyahay waad kala socon kartaa. marka Gutenberg qaabkaasi ayuu u shaqeeyaa waa blog editor weeyaan marka oo WordPress-ka la socda marka ama waa page builder sida Elementor iyo waxyaabahaasi ayuu la mid yahay asiguna. waa meesha mustaqbalka loo socdana waa meeshaasi oo marka blog editor-kaasi weeyaan marka qaabkani ayuu egyahay marka Gutenberg guud ahaan haddii aan wax yar oo overview aan idinka siiyo balse waxaan ku baran doonaa koorsadani oo idilba waxaan ku baran doonaa ayaa waxay tahay marka Gutenberg iyo waxa uu yahay ayaan ku baran doonaa. haddaba marka waxaan rajaynayaa intaani hordhacani yar maantay Gutenberg iyo sida loo isticmaalo ama uu u shaqeeyo waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay. marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.